Xilliyada laga nasto shaqooyinka ayay nin iyo xaaskiisa habeenada qaarkood maqaayadaha u casho tagi jireen. Habeenada ka mid ah, isagoo ninka isu diyaarinaya inuu xaaskiisa u kaxeeyo, ayaa waxaa dhacday in marwadii ay ku tiri gacaliyaheeda, "Waxaan kaa codsanayaa halkii aan anigu ku raaci lahaa inaad casuunto oo aad kaxayso, la soo cashayso, waqtina la soo qaadato hooyada." Ninkii ayaa jirircooday, wuxuuna ku yidhi, "Allah ku barakeeyo, hana ku abaalmariyo marwadeydii sharafta badnayd. Waa runtaa, inta ugu badan shaqada, adiga iyo carruurta ayaan ku mashquulay." Dabadeed wuxuu durbadiiba wacay hooyadii, wuxuuna u sheegay inuu soo marayo, wada lugaynayaan, soona wada cuntaynayaan. Hooyadii ayaa rumaysan weyday in wiilkeeda oo inta badan aysan waqti isku helin inay afkiisa ka maqasho kelmadaha qiimaha badan, waxaana hooyada ka buuxsamay farxad. Wuu soo maray, way wada lugeeyeen, cunto soo wada cuneen, hase yeeshee hooyadu iyada ma danaynayn goobta ay tagtay iyo cuntada. Waxaana ugu muhiimsanaa in wiilkeeda uu naxariis iyo ihtimaam u muujiyay dhinaceeda, uusanna hilmaamin inuusan dayacin hooyadii, xitaa isagoo mashquul ku ah shaqo, xaaskiisa iyo carruurtiisa. Waxay la qaadatay waqti wanaagsan, taasoo uga dhignayd maalin ka mid ah kuwa ugu farxadda badan nolosheeda. Waa dhextaal kooban. Waxaan codsan lahaa haddii aad la kulantaan dadkan camal inaad wax ka iibsataan, waayo waxay kaliya ka fikirayaan quutaliyoonkooda maalintaas, lagana yaabee carruur iyo waayeel baa ku tiirsan shilimaadka yaryar ee miiskaas ka soo xarooda. Caawiya masaakiinta. Sheekadina ha inoo sii socoto. Wiilkii iyo hooyadii markii ay soo noqdeen, ayuu weydiiyey hooyadii inay faraxsan tahay. Waxay tiri, "Haa wiilkaygiiow, Alle ayaan ku dhaartee, aad baan kuugu faraxsanahay adiga iyo reerkaagaba." Wuxuu ugu jawaabay, "Insha Allah, waqti kale ayaa sidan oo kale samaynayaa." Waxay tiri, "Maya hooyo, casuumadda xigta aniga ayay iga imaanaysaa insha Allah." Wuuna ku waafaqay. Toddobaadyo iyo bilo ayaa ka soo gudbay, waxaana dhacday in hooyadii ay xanuunsatay, kadibna ay geeriyootay, Allah u naxariisto, iyada oo uu aad uga murugooday geerida hooyadii. Maalmo kadib ayaa waxaa dhacday in maqaayadii ay wada tagi jireen hooyadii xilligii ay nooleed, ayaa maamulkeedu uu soo wacay, waxaana loo sheegay in casuumaad ay u taal isaga iyo xaaskiisa, qarashka casuumaaddana mar hore la bixiyay. Isagoo yaaban ayuu isweydiiyey cidda bixisay, dabeedna xaaskiisa ayay isu raaceen, waxaana markii ay maqaayadda yimaadeen loo dhiibay warqad looga tegay, waxayna u qornayd sida tan: "Wiilkayga aan jeclaa, Allah ku abaalmariyo. Waxaan kugula ballamay inaan isla goobtan kugu casuumo, balse mashquul badan baad ahayd. Balantaydii ayaan fuliyay, adiga iyo xaaskaaga ayaan idin wada casuumay. Haddaan annaga is arki weynay, ducadayda ayaa idinla jirta." Dulucdu waxay tahay qiimaha waalidku, gaar ahaan hooyada, inuu yahay mid aad u weyn. Ha ka caraysiin weligaa, ha dayicin, ha ka mashquulin. Ma ahan inaan sugno marka hooyadu dhimato ama aan waalid noqono inaan garanno qiimaha hooyada. Haddii waalidiintaadu nool yihiin, si gaara hooyada, la xiriir, waqti fiican la qaado, cafis weydiiso, waad guulaysanaysaa idanka Alle. Waxaan qormadan ka soo xiganay qoraaga weyn Cabdulaahi Nuur Colombo. Fadlan walaal, adigoo mahadsan, la wadaag walaalaha iyo asxaabta kale si ay cashar uga qaataan iyagana, oo muuqaalka inoo sheer gareeya.